walaalahay soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaashin raxma ruuniya mar kaleeto waxaan samaysanaynaa doorshe Soomaali. Mafahanteen alaabada wada naaqus laga dhigaa, waxa lagu daraa wax wada saliid waa laga yareynaa, sokorta waa laga yareynaa. wala samee arkaas uu ku soo baxay 4 xabo ukuna, koob aday laba malqacdo camalo saliida, koob haafkiyo caana, koob haafkiyo sonkora, baking powder iyo vanilla. mafahanteen intaas aan isku soo qasaa. makiinadii waa tan way diyaarsan tahay. makiinadana ku soo shiida waan soo diyaarinaa, ka bacdina waan isku soo noqon. intii markaan alaabada isku soo shiiday waxaan ku darayaa hadda intaan ku shiidi maayo, waxaan ku qasayaa malqacada caadiga. waxaan ku daray koob bur ah oo burka malqacadan kula walaaqan ma ku shiidayo insha Allah. ayar hadda birta halkan lagu dubo burka baa soo marinay saliid, ka bacdi waan ku shubaynaa. bismillah waxaan u shubaynaa halkan. markaan ku shubno halka kale waxaan ku daraynaa kakao, laba qaado kakao gaasaan ku daraynaa halka soo haray. laba qaado kakao aan ku qasaynaa kakao-ga wada dhex gelinayna. waa kaasaa uu noo diyaarsan yahay. hadda saasaan dabka ku gelinaynaa. berri aan alaabtan macmacaan ku samaysanaynaa. waa inoo berri insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga qaaliga waan salaamay. waxaan samaynayaa wax yar oo macmacaan maanta insha Allah. caramel cake oo aan ciyaalka u samaynayo. wuxuu ka kooban yahay kareem float iyo wuxuu ka kooban yahay caramel sauce iyo waxaan isticmaali doonaa kaakahaas. waan duubay marka waa Soomaali cake Soomaali weeyo, qaybna shukulaato ka dhigay qaybna cadaan. waa ujeedin waa cake Soomaali caadiga ah. intaas aan marka ka samayn doonaa insha Allah. kareemkii waan soo shiiday khiyaaray, waa kana halkan aan ku soo diyaariyay insha Allah bismillah kareem. waa ujeedin marka kareemka laba qaybood baan ka dhigayaa haduu Ilaahay ka dhigo. akhyaare waxaan u baahanahay bahashan oo lagu sameeyo keega. bahashan kaaka lagu sameeyo u baahanahay. tan baan gacanta gashanayaa. keegan marka saas ugu burburinayaa halkan. ma fahanti saas baan ugu burburinayaa. keegan dhan machine haddaad hayso waa ku shiidi kartaa, laakiin aniga gacantaydan saa ugu burburinayaa. machine ma rabo inaan ku shiido hadda. saasaan ugu soo wada burburinayaa. keega haaf baan saa ugu soo burburinaa, ku soo wada shubi maayo. inta badan baan saa ugu soo burburinaya marka ku soo wada dhameeyaa aan idin tuso. walaalahay saana u soo dhajiyay keegii. saanaan bahasha gunteeda ugu soo wada dhajiyay. ma jeedin saankaan ugu soo wada dhajiyo. kareemkii baan laba nooc ka dhigay, laba jab baan ka dhigay. kareemkii aan u kala qaybiyay. kareemkii baan laba qaybood ka soo dhigay. qayb intaan ku soo shubay, qaybna waa tan dushaan korkaan uga sharaxaya ama dushaan ka marinaya. qaybtan aan saa wada gaarsiinaya insha Allah. saasaan ugu wada sinaya qaybtan. saan markaan ugu soo wada mariyay kareemkii, hadda waxaan ku shubayaa karameelihii aan ku shubayaa insha Allah. wada gaar la rabaa. wada gaar la rabaa. saas uu wada gaaro insha Allah. saasaan hadda waxaan gelinayaa talaagada 1 saac. markuu karameelka iyo kareemkiisa soo yara qabsadaan, intan kale kareemkan kale ayaan rinji marinaya, ka bacdi korkan kaga buuxinaa insha Allah. intan hadda waxaan ku shubanaynaa bac oo dushaan kaga sharaxaynaa. rinjigaas cuntada la mariyo. rinjiga cuntada la mariyaan dhibic ku siinaa, 1 dhibic. labada dhibic aan ku shubaa, ka bacdi waan ku walaaqaa. waxaan ka rabaa inuu noqdo ruusaca.
aan ku daraa خلاص intaasaan ku walaaqa akhyaaray waa kana waan soo diyaariyey keegeeni insha allah karameel keegeeni waa kan ma fahanteen okay waa kaasaa keeg ma soo diyaarinay saas ku soo baxay hoosna maasha allah tabarakallah soo dhawaada casriye wanaagsan walaalahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh